Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale iyo la baro. Waxaanu halkii kasii wadaynaa scientific notationkii. Waxaynu u gudbi doonaa sida la isugu daro iyo sida loo kala jaro. Marka waxaynu toos u gudageli doonaa tusaalayaasha. Aynu qaybta waxaynu ku bilaabaynaa markaa isku darka. Marka maadaama isku darka ku bilaabayno, waa additionka ama isku daridda aan isku darayno. Tusaalaha ugu horreyn soo qaadanayna waa maxay? Waxa weeyaan waxaynu isku daraynaa 3.5 times 10 powerkuna uu yahay 4. qalinkii maanta sibaa buu yaro wareersan yahay, raalli noqda. Waxaad ku daraysaa 2.1 times 10 to the 4. marka iminka additionkaas waxaad arki karaysaa inuu powerkana uu yahay 4 kana uu 4 yahay, ama n-tani waa halkan waxaad xasuusnow scientific notationku wuxuu ahaa a times 10 to the power n. marka iminka n-taasi waa powerkii, waa isku mid. marka powerku isku mid yahay waa very easy. waxaad samaynaysaa keliya lambaradaas isku daraysaa. marka lambarada aan powerka ahayne eeda ah ayaad isku daraysaa. marka maxay noqonaysaa 3.5 oo lagu daray 2.1. isku darka waa taqaanaa. waxa weeye waa 5.6. marka maadaama labaduba ay isku mid yihiin powerku, mid unbaad ka soo qaadanaysaa, waa times 10 to the 4. jawaabtaadu wataa. marka waa very simple. 5.6 times 10 to the 4. marka waa additionka marka ay isku mid yihiin. okay, waxaynu u gudbaynaa iminkana marka iminka subtractionka. marka subtract iminka laba number baad kala subtractgareynaysaa, oo iyagana tusaale ahaan maxaynu usoo qaadanaa labada number. waxaynu usoo qaadan karaa 6.2 for example. 6.2 times 10 to the 5 minus 4.8 4.8 times 10 isagana waxaanu oranaynaa 5. marka halkan again waxa weeye waa maxay tahay marka ay tahay subtractionka laftigiisa. waxa weeyaan waa labada powerku waa isku wada mid. marka maadaama powerku isku mid yahay, waxaynu kala jaraynaa labada lambar. waxaynu oranaynaa 6.2 minus 4.8. markaasaad kala jaraysaa 2 ka jar kama jar marto xabad soo qaado. waxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa 12 ka jar 8 waa 4.1. marka halkan 5 baa kugu haray soo ma. halkan 5 minus 4 waa 1. marka 1.4 iyo 10 powerkuna yahay 5. kaasina answerkeedii halkaasuu noqonayaa. marka halkan maxaad aragtay? waxa weeye ama isku dar ama kala jar. haddii powerku isku mid yahay, lambaradun baad isku daraysaa ama kala jaraysaa. okay, iminka haddaba how about haddii powerku uu kala duwan yahay, oo powerku maxay tahay aanu isku mid ahayn. marka isagana taana maxaynu usoo qaadan karaa? waxaynu usoo qaadanaynaa tusaalaha ah for example oo kale waa different markay tahay powerkoodu, exponentku uu different yahay. waxaanu oranaynaa markaa different exponent, ama powerku ama n-tu ay different tahay. waa n-ta ayaa different ah. marka n-tu different tahay ayaad iyadana aad soo qoranaysaa. sidaad u qoranaysaa? marka waa isku darkii baanu weli ku jiraa oo n-tuna ay different tahay. marka let's say
5.0. Okay, iyadana 5.0 times 10 to the 3 oo kale waxaynu ku daraynaa number ah 2.5 times 10 this time oh 4. Let's put it 4. marka imika halkaa waxay labadii waa kala duwan yihiin maadaama powerku uu kala duwan yahay you cannot do the same as before oo ma odhan karaysid labadan lambar isku dar laakiin way kala duwan yihiin marka ugu horeysa markaa first step waxa weeyaan labada lambar waa inaad isku mid ka dhigtaa labada power the powerska ama n numberska isku mid ka dhig halka imika marka waxaanu haysanaa choiceka ah ma tan baynu ku daraa one step oo maxay tahay upgaraynaa oo 4ka gaarsiinaa mise 4kaynu hoos soo celinaa marka maadaama tan tii hore tahay tan baynu ku bilaabaynaa markaa okay waxaanu doonaynaa markaa our target is inaynu 10 to the power 4 ka dhigno halkan si hadhow ay easy noogu noqoto haddaba waxay tan marka enta weeye markaa entii remember halkan waxaa xasuustaa entan ayaynu doonaynaa inaynu increase karayno markaa the easy way to do this is this waa n ayaynu rabnaa markaa increase karayno imisaa la increase karaynayaa by 1 marka 1 halkaa ku dhig marka n going up 1 right n baynu increase karaynaa 1 ka 1 maxay tahay 1 level ayay entan aynu sii siyaadinaynaa oo powerka ah marka maadaama n going up ay tahay decimalkani ama dhibicdani arrowgeedu xaguu u socdaa ma left or right maxaynu nidhi always remember waxa weeye waxay u socda waa counter I mean waa clockwise oo ah this way marka maadaama this way uu yahay clockwise yahay wuxuu usoo soconayaa markaa mar walbana enta bottomkeedan the tailka waxaa ku xidhmaya arrowga ka turjubaya dhinaca ay dhibicdani u socoto markaa aad doonayso inaad u dhaqaajiso marka waxay noqonaysaa from the left going to the left from the right going to the left marka waa halkaasay noqonaysaa decimalkina marka decimalkina wuxuu noqonayaa 1 marka the bottom line is 5.0 gaas waa inaad u dhaqaajisaa 1 arrow to the left si uu entany 1 uu kugu increase garoobo marka 1 arrow to the left waa sidaan hore usoo dhiganay waxa weeye waa doontii waa 1 arrow ayaad soo dhaqaajisay already arrowgii maxaa kuu saaran waxaa kuu saaran 5ka kuu saaran dhibicdana halkaas ku beegmaysaa the new dhibic marka halkan maadaama new dhibic halka 0 ka horeysiinaysa kan qasa 0.5 imika kaas wuu ka baxay markaa way soo wareegtay okay times 10 3gaasaad caadi usoo qaadanaysaa maxaa markaa n t maxaad ku darsatay waa 1 way ntina maxay increase garowday maadaama arrowgii 1 left ahaa ntina waxay ku increase garowday 1 marka plus 2.5 times 10 to the 4 hadda imika markaas halkan maxaad ka arkaysaa waxaa weeye 0.5 times 10 to the 4 plus 2.5 times 10 to the 4 hadda labadiiba waa wada siman yihiin waa isku mid waa 4 and 4 then waxaad isku daraysaa 0.5 iyo waxaad isku daraysaa 2.5 oo ku siinaysa waxay ku siinaysaa 0.5 iyo 2.5 labada waxaa ku siinaysaa markaa 3.0 isku darkooda waa 3.0 3.0 times 10 to the 4 answerka waa kaasaa markaa okay taas waa marka ay kala duwan yihiin ee aad isku daraysid two scientific notationska
weli waxaynu ku guda jiraa different exponentkii marka labadan marka scientific notationka ah ee minus 3ga kana uu yahay kana minus 5ka yahay ayaynu doonayna inuu kala jaro haddaba waxaynu marka ugu horeysa waxaad xasuustaa waxaad samaysanaysaa linekaas oo ah linekii maxay to enter minusta iyo enter plusta marka halkana waa 0 halkana waxa weeye waa minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and so on halkana marka waxa 1 2 3 4 marka 1 2 3 4 marka halkaas 0ga wax mar walba waxaad oga tahay inay tahay 10 to the 0 halkan tana waa maxay 10 to the minus 1 10 to the minus 2 and so on haddaba maxaynu joognaa halkana waa 10 to minus 5 tana waa 10 to minus 3 waxaanu doonaynaa inaynu minus 3ga ka wada dhigno marka maadaama kan ugu horeeyahay wada minus 3ga sina halkaas aynu isugu keenaynaa marka bartaas markay halkaa tahay ayaynu isugu keenaynaa levelkaas haddaba saynu halkaa u nimaadno tan maxay u baahan tahay in lagu sameeyo tani waa halkan bay joogtaa 10 minus 5 kan bay joogtaa kor baynu usoo qaadaynaa maxaynu kor usoo qaadaynaa waxaynu usoo qaadaynaa 2 levels nt baa kor usoo kacaysa maadaama nt kor usoo kacayso waa 1.6 1.6 kaasna decimalkani waa inuu u dhaqaaqaa markaa isna laba jeer bidixda nt hadday kor usoo kacday waxay ka dhigan tahay laba jeer oo bidixda waayo remember this markaasaad u xasuustid maxaynu nidhi counter clockwise waxaanu nidhi clockwise waa bidixda kasoo bilow oo midigta tegaysa saacaddu saasay u socotaa dhag 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 saasay u socotaa marka hadday nt up ahayd decimalkina waa inuu dhinacan kasoo baxa saas ay to the right maaragta from the left to the right ay saa u socotaa clockwise kaas marka decimalkuna wuxuu la mid yahay inta marba ay tahay n2 waa 2 decimalkana markaa 2 ayuu soo dhaqaaqaya marka 2gii soo dhaqaaji marka halkan uu ka dhaqaaqay doontiibuu soo raacay tii labaadna waa taasa halkaasuu markaa yimi maadaama kan doontan already 1 saaran yahay kanna 0 baa kuu fuulaya marka muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa 0.16 8 bay halkaasi marka 68 right times 10 minus 5 maadaama 2 uu soo dhaqaaqo up ahaa plus 2 marka answerkana muxuu noqonaya halkana marka 0.168 times 10 minus 5 plus 2 waa minus 3 haddaba imika maxaad haysataa tan waa minus 3 tanna waa minus 3 marka waxaad keliya samaynaysaa waa labadan lambar kan iyo tan baad kala jaraysaa oo ah 369 ayaad waxaad ka jaraysaa 0.168 marka waxaad imika waxaad kala jaraysaa uun lambarkan 3.69 kaas oo ah 3.690 iyo 0.168 kaas oo ku noqonaya markaad kala jartid 2 2 5 and then 3 waxaad markaas soo qaadanaysaa uun maadaama 10ku uu isku wada mid yahay minus 3 10 minus 3 answerkina waa kaasa markaas answerkina waa kaas intaa waxaan haddaba kusoo gabagabeynaynaa maanta casharkeennii aynu ka wada baranaynay labaro aynu maanta ku baranay isugeynta iyo kala jaridda scientific notationka isagoo powerku marna isku mid yahay marna kala mid yahay xasuusnow hadduu powerku isku wada mid yahay waxaad isu geynaysaa ama kala jaraysaa uun lambarada eeda ama lambarada ka horeeya times 10 to the powerka haddii ay poweradu ay kala duwan yihiinna waxaad samaynaysaa powerada ayaad isla simaysaa marka ama lambarka ugu horeeya ayaad ka labaad powerkiisa kala badigaysaa
ama ka labaad baad kan koobaad powerkiisa kala badigaysaa choiceka adaa iskale waxaad kala xasuustaa haddii numberku n2 powerku uu kaco oo kor u kaco decimalkuna waxay u socdaan bidixda hadduu powerka numberku uu hoos u kacana decimalku waxay u socdaan midigta marka taasaynu kusoo gabagabaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu